dee markii hore nin ogaadeen oo cabdallo oo reer qaasina haddana waxaan ahay nin isaaqo oo ma garanaysaa dibudejin baan u baahnahay meeshaan ku noolaa degenaa wixii ma jiraan hablaha ayaan dhawey ii yimid oo waxay dhaheen annagaa reer kuu dhisan waxaan idhi weel weyn baa ilaahay lagu baryaa baan idhi inanta waraaqdana si ugsii daynayna nin waardaa fadhiyey ridda anna meesha dee meelahan ku dagaalami karo oo guri dhexdii dad hadduu ku arkayo dadka waad iska celin karaysaa islaamkaasaad magaranaysaa iga qabta odhan karaysaa laakiin meel baa maxbuus ku ahaa 2 maalmood iyo 2 habeen marka walaal isagii baa soo baxay rabasuu tegey rabasa ayuu warkii odayaasha u sheegay waxaa loo sheegay 3 caruura inay ka maqan tahay ciidagale 2 cabdi bari ah iyo mid yoonisa ayaa maqan baa la yidhi weliba markaa waxaa loo raaciyey inanka yoonis uu dhintay warkiibuu ii soo celiyey dhimashaa markaa adiga lagu qoray markaa dhimasha ay qoran oo sababtana markii dambe dadka weydiiyey waxaa la yidhi hooyaa samri weydii marka iyadu inay dhimato markii laga yaabay ayaa show dee xilligii ka dambeysay bay ahayd 7 lafo waxay tidhi dheerdheer oo dee ruux weyna ayaa la ii keenay bay tidhi dee lafihun baan iskaga samra bay tidhi oo ma garanaysaa samiri iimaan aan ku qaatay haa kan aan markan dambe noqonayo yunis daaqadda waa laga saaray dee maadaama uu dhintayba 2 cabdi bari inaan ehelkood is aragnaan jigjigo uga soo tegey rabasaan tegey rabase markaan tegey 2dii inana cabdi bari mid inagood baa la dhihi jiray walaalkii baa ii yimid ilamuuna hadlin imuuna wareysanin anoo dadku i wareysanayaan buu ag fadhiistay wuxuu yidhi walaalkii ma ah midna ina xuseen jaraaf baa la oranayey nimay ehel ahaayeen ayaa yidhi ila joogay oo yidhi ma garanaysaa inankaa inaad tahay ayaan filayaa calaayi xaasil warkii baa dadkii wada gaadhay anigii wuu dhintay maca markii daroor warkii uu tegey yuuniski waxay dhaheen in ciise guri lafihiisii baa lasoo helay oo ma aha nin caaqilahoo faysal cali dheere la dhaho waa caddo degan oo daydageygii aada ugu jiray ayaa wuxuu sameeyey markaa yidhi in ciise gurey lama helin raadkiisaan weynay roob baa naga qariyey war ninku waa isagii aan tagno lama tegin marka nin gaashaamo u socdoo gaari wata rabasay igu arkay ayaa daruur tegey meherad buu fadhiistay war adduunka waxaan la arkaynin ma laho maxaa dhacayo nin noocaasa rabasa aan ku soo arkay markaasay yuuniskii dhaheen war sidee buu u egyahay oo bal noo tilmaan markaa iyagii walaac waxaa ku jira armu isagii inankii yahay iyo armuusan ahayn iyagii laftoodii ayaa iskhilaafsanaa waa nin noocaasu tilmaantaydii buu bixiyey isagoo itilmaamaya ayaa sida lii sheegay waxay ku walaalka uu dhalay inaan walaalka dhalay oo meesha joogay oo markaa 10 jir meelaha ahaa ayaa meheraddii soo galay markaasuu yidhi inankan uu eegyahay bas markiiba su-aal dambeba laisma weydiin sababtoo inankan adeerka u ahaa iyo anigii mar hadduu isu soo kaaya qabtay ninaan isu kaana aqoonin xilligay meesha ka soo yaaceen iyagii waxaa iiga soo horreeyey reer kale oo ma garanaysaa guyuube ina quulle in la dhaho oo isaguna ambaday soomaalidu caruur badan baa yaa maqan adoo halkaa dhowr qoys baa isugu ka yimid hargeysaan wada nimid in ma garanaysaa baaritaan iyo wax la sameeyo hargeysa markaan nimidna dad kale ayaa ku darmaday waxyaabaha ma garanaysaa markaan halkan imidna cajaa'ibka ahaa waxay ahayd ina walaashay aqool cadi iskaga hor nimid oo halkan ka tagtay 3 walaalanahay iyo inan adeer u ahay ayaa iga hor yimid markaasaa gaarigii markaan kasoo tegnay dhowr nin baan ahayno waxay tiri walaalkay meye
markaasuu midna la socday yidhi dee adugu waa garo anigii marka way taagtaagnayno saasaan usoo dhex istaagay waan isa soo garab istaagna markaas inta saa wejigayga u egtay yaa halkaa ay qabatay way tiri waa kan walaalkay cabdirasaaq ciise adoo halkaa qabashadaa inanta ay qabatay dee dareen naxariiseedoona noloshay aana soo arag ayaa ma garanaysaa igu dhashay kow inantan inay walaashay tahay halkaasan ka aamin haddana waxaa isdiidayey inantan walaalkeed meydkiisii baa lasoo helay adugu inaan waxubsado ayaa qasab ahayd muddo kadib halkan aan damcnay d n a-ga inaan iskaga qaadno d n a-gi waxaa batay ma garanaysaa buuqiisii iyo nidaamka loo qaado hargeysa iyo nidaamka etoobiya loo qaado ayaa kala bedelan waxa weeyaan labadeenna waa israacaynaa isbitaalkaan tegaynaa lacagta dhakhtarkaan bixinaynaa d n a-ga naga qaadan odhanaynaa etoobiya waa nooca halkana waxaa la yidhi maxkamad baa la mari sidana waxayn dee bil iyo saa'id baan maxkamaddii ku laalaabanaynay markay arrintu noocaa noqotay ayaa adisababa tagnay adisababa d n a-gi iskaga soo qaadnay halkaasaana ma garanaysaa lagu xaqiijiyey hooyada inay tahay saade axmed jaamac allahu naxariistee oo aan ahay cabdirasaaq ciise sidii baan ku imid hargeyso shucuurtaadu sidee bay ahayd markii aad qoyskaagii heshay muddo 40 sano dhowr iyo 40 sanana aad ka maqnayd qoys kale aada la nooleed oo qoyskaaga saxda aan ahayn markii aad hooyadaa u timi faamiligii qoyskaagina aad heshay bal dareenka markaasi aad alxamdulilaahi hooyadii muddo aada u yar aniga ugu yar ayaan magaranaysa wada joognay 8 bilood bay ahayd 8 bilood waxay la ahayd dee jannadii adduunka ayuun baan ku jiray naxariis raxmad laakiin allahu naxariistay markii ilaahay magaranaysa adduunka nagu kala geeyey markaasaa hawli ugu soo furatay marka alxamdulilahi wax walba waa la arkayaa aniga midda ma garanaysaa markaan ehelkee helay 2 inan baan dhalay oo yaa noolaa waxaan dhalay mid xaggaa kenya joogay midna iswidhan buu joogay kii kenya joogay hooyada markay xanuunsatay ayaa waxay jeclaysatay dee qof weyn wadkii waa yaqaanaa intayna teediiba intayna noqonin inay inankii aragto inankii iikeen bay baday tiri inanka hooyadiibaa yaa waxagoo lacaga oo markaa ehelku isii ayaan u diray isagii hooyadii baa yimid waan garanayaa hooyaday muddo 2 bilooda waxna mayna cunin waxna mayna cabin markaa iyada ah oo ma garanaysaa xanuunkaayi ayaa cuntadii iyo cabitaankiiba u diiday xoog aanaan filaynin inta ay yeelatay inankii markuu saa u soo galay ayay isku dugtay bes 2 maalmood kadibna way geeriyootay allah naxariiso marka kii kale ee iswiidhan jiray kaas markii hore hooyadii waan wada xidhiidhaynay layn baa ii socday ma garanaysaa anuu hargeysa jooga dhoofitaana hase ahaatee caqabad baa meel dhexe ka timid hooyadeed baa ma garanaysaa mar walba isku kaaya wadi jirto markii ay igu kacday waxaa igala hadli jirtay hooyadeed way dhimatay inama ay walaalo yihiin iyo ayuunbaa iyadii waxu sheega un baan filayaa waa saan filayo inantii waa kanoo muddo ma garanaysaa markii aan imow hargeysa aan lahaa ayay tiri hargeysa iman maayo waxaan imanayaa
garawey timid soo tag bay tiri waan tegey markaan magaaladii baska ka dhaadhaceen la hadloon idhi waan imid waxay tidhi walaaladii baa ku imanaya laba walaaladeeda ii yimid way qaadeen guribay ii geeyeen casarkii bay ii yimaadeen waxay dhaheen waraaqdii inanta ayaan kaa rabnaa waxaan idhi inantii hala ii keeno iyadaan wada hadalle laguma keenayaa la yidhi annakaa mas-uulkaa waa inaad waraaqdeeda keento ana waraaq ma dhiibaya baan idhi maxaa keenay markaa inay tiraahdo warqaddii waxaa keenaya waxay tihi markii hore nairobi isku guursanayni waxaad ii sheegatay ogaadeen haddana waxaad leedahay isaaq baan ahay marka dee adayta waa midii aan kuu sheegayey bishii rabadaan noloshaydu iyo ma garanaysaa sida aan ahaa waa kanoo waad arkaysaa laakiin dhibaatadu waxay ka timid iyadii markay saa i yeeshay wakaas bishii rabadaan garantan saaka waxaan u soo xidhay yacni noloshaydii rabadaan horteed siday ahayd iyo iminka sida ay tahay waxaa weeye dadku waxaan maqli jiray cilmi boodheri jacayl buu dhintay waxaan hadda markaan fikiray aan idhi wallaahi jacaylka cilmi boodheri oo kalea ku haya sababtoo ah jacaylku dee isagoo cudur ma aha sidiisa wax u dila laakiin saamaynta uu kugu yeeshay ayaa ku dilaysa anigoo dhibaatadaasoo badan soo maray jiri badan soo maray warqadeeda haday rabto wada ka siinay inankayga laakiin u baanahay inankayga u baanahay walla waxaasoo dhibataanoo soo maray oo markaan ka soo kaban lahaa ayay middan iigu darmatay marka streskii faraha badnaa macaan dhiikar dee 3 bilood baa sidan u baaba-ay muddo 3 bilood gudahooda noloshayda saasay noqotay marka ilaahay ma garanaysaa ayaan colayskan inuu iga fudo ayaan rajeynaya insha allah taasaan rajeynaya laakiin dee nafya shaydaan baa ku weheliya adba saakan ina waxaan ku idhi shaydaan ba ii waxyooday oo muxuu igu yidhi adoon tukanin oon soomin oon istijo qabin intaad ilaahay barido ayuu markaaba ku aqbali jiray laakiin hadda adoo soomaya sujuudaya ilaahay baryaya wakaasoo kuma aqbalayo markii aad garowa tagtay waxaa sheegtay in inamadii walaalaha ahaayeen gabadha ay ku yimaadeen warqadda ku weydiiyeen maxaa dhacay markaa 2 habeen baa meesha ku codnaa sidaa lagu xidha marka maxaa saa lagu xidhaa inanta waraaqdeeda un bahayd inanta waraaqdeedana si ugsii daynayna nin waardaa fadhiyey ridda anna meesha dee meelahan ku dagaalami karo oo guri dhexdii dad hadduu ku arkayo dadka waad iska celin karaysaa islaamkaasaad magaranaysaa iga qabta odhan karaysaa laakiin meel baa maxbuus ku ahaa 2 maalmood iyo 2 habeen subaxii dambaan arkay waardigii oo magaranaysaa aan joogin riddi baan iska furay sidaan banaanka ugu baxay markay iga soo daba baxeenna boolis baan idhi
way iga laabteen sidii baa ma garanaysaa isugu kaayay caruurtii markaa gabadhaasi hal inan bay ku haysay xaggey joogaan imanka markii igu dambeysay Nairobi baan joogaa bay igu tiri aan wada hadallo lambarkeedii way bedeshay laakiin messengerkan marmar ay qabataa ama fariin igu soo dirtaa gabadhaad u dhaxday qabiilkeeda ma sheegi kartaa ها مجرتن عمر محمد اهي marka كلي وندون hal codsi ah fariintaad u dirayso bulshada Soomaaliyeed ugu dambeyntii adigoo dhibaatadaas oo dhan soo maray balorta intaad fariinta u gudbin qabiilka markii hore aad ahayd markii hore inta sanadood 40 sano aad la soo nooleed saad sheegtay da'du waxa tiri waa dhowr iyo 50 bidh madaxa la gelisay konton ma ku dhawdi laakiin dhowr iyo 40 kaas sanadood la joogtay qoyskaas iyo qabiilkaad markii hore ahayd iyo kaadimka hadda tahay bal bulshada oo cadee de markii hore nin ogaadeen oo Cabdallo oo reeqaasina haddana waxaan ahay nin isaaqo oo ma garanaysaa garxashisa idagala yuunisa ree Ismaana ree Faaraxa in ciise guree marka laga yimaado in 40 ka sanadood aad la nooleed dhibaatooyin badanna aad sidaas sheegtay soo martay bal fariintaad u dirisay bulshada Soomaaliyeed waxa sheegtay in qoyskaagii qaar ka maqan yihiin aan la hadlaan gacanta ku haynin saad garowga sheegtayna garowga inta markii aad tagtay lagugu xiray oo guri lagugu xiray adigoo raadinaya saad u hesho qoyskii bal sababta ku xireen maxay ahayd sababta ay xireen in gabadha waraaqdeedana si oo ku sii deynayna meesha doonto mar bay ahayd maxay tahay marka reasonka sababta lagu yaano waxa weeyaan iyagu marmasina waxa ka dhiganayaan nin hadba qabiil ma garanaysaa sheeganaya ayaa tahay ayay marmarsiye ka dhiganayeen midda kale xilligan jeel ogaadeen galayna xiriirka iyaga kala go'ay oo muddo ayaa ma garanaysaa aan kala maqnay Soomaa muddada ay warkayga la ahayd waxa la yiri marka iyada shaqaale dawladeed buu ahaa oo nalaf baa dishay oo ninku u dhintay ayaa loogu sheekay marka inta aan xidhnaa dhibaato badan bay soo martay oo geerina ay igu tirinaynin nololna ay igu tirinaynin inanta iyada dhibaatooyin badan baad u geysatay marka waraaqdeedii uu nasi ay ahayd midaas ay ahayd walaal marka fariintaad u dirisay bulshada Soomaaliyeed reerka hadda imaka saxda aad tiri reerkaas aan ahay iyaga laftooda iyo bulshada Soomaaliyeed iyo gabadhaas qoyska reerka ka tirsan tahay intaba fariintaad halkan ugu gudbinayso ee aad u diraysaa maxay tahay si arintaadan wax looga qabto gabadha ehelkeeda kale reerkooda guud qaaraan isnaqaano way jiraan laakiin muhiimaddu waa walaaladeed ay muhiimad yihiin walaaladeed waxaan u sheegayaa inantooda haddii ay ma garanaysaa inaan u fura ay doonayaan waraqadeedii aan siiyo dee sida wejiga ay la yimaadeen ayaanan ugu badiiday intaasoo naagood baan soo guursaday si dhib yarun baan u furi jiray waxaan dhihi jiray guurku waa heshiis haddii labadii qof uu mid wax tawdo dee ha lagu kala tagaan oran jiray inkastoo dhalinyaronimo ay markaa ay qaadaysay waan siin lahaa walaashay waraaqdeeda aniga iyadoo haddaan kulanno iscafino xaq baa naga dhexeeya waraaqdeeda waan siin lahaa laakiin si afduuba qasab ah taasaan diiday ta kale inankayga dee xaqi ma garanaysaa waalidnimo inaan wada xidhiidhno ahayd taana inaan helo waa midaan u baahnay waxa kari karana waxaa weeyaan inamada walaaladooda haddii ma garanaysaa dad islaama la yahay dad ehelaa la wada yahay meela lagu kala tegi maayo aniga inankayga hana wada xidhiirsiiyaan walaashoodna si wanaagsan aan ku kala baxno ta kale bulshada Soomaaliyeed
qoyskaad hadda tahayba maxaad u diraysa hablaha ayaan dhawed ii yimid oo waxay dhaheen hablaha keer xajiis haddaan nahay annagaa reer kuu dhisan waxaan idhi weel weyn baa ilaahay lagu baryaa baan idhi anugu bulshada reer somalilan iyo soomaalida dadku muxsiniinta ah ayaan wax weydiisan baan idhi oo ma garanaysaa igarab qaban insha allah dibudejin baan u baahnahay meeshaan ku noolaa degenaa wixii ma jiraan hargeysa haddii ma garanaysaa shaqi iyo aan wax ma garanaysaa gelilaha lahjada yaa dhibigu ah oo qof meel keela ka yimid adduunka kadaato waad og tahay ruux ma garanaysaa aan la garanaynin meel kale ka yimid dee xaaladaha jiraaba kalifaya anugu dibdejin baan u baanahay waxaan u baanahay oo kale hadayta kaftan waa kan ku lahaa jacayl baa hilibkayga dhamaystay waa run jacayl baa dhamaystay saan inankaa iyo gabadha dhashay aan oga fikirayey ayuu macaani u dhacay dhiikar kininkii aan qaadanayey waxba way qaban laayeen marka caafimaadkaygii baa halis ku jirta marka ilaahina wuxuu yidhi iyo rasuulkiisiiba dee isu kaalmeeya qolada ehlunaarka ah qayb ka mida ayaa waxaa la yidhi war naarta maxaad ku mutaysateen 4 qodob miya mise 5 qodob ayay sheegeen waxay dhaheen qaaluu lam nakum min almusalliina walam nakum nudcimu almiskiina wakunaa naquudu maca alqaa'idiina wakunaa nukadibu biyowmi ddiin xataa ataana alyaqiin marka sadaqada la bixiyo naar baa lagaga badbaadaa talala bakaylana naar baa lagu galaa dee qofkii ilaahay dartii ma garanaysaa igu soo kaalmayn lambarkayga shaasad ayaan idiin soo dhigan insha allah intaasaan ducana waan ka rabaa in laiisoo duceeyo dhibaatooyinkan iyo waxaan in ilaahay ma garanaysaa iga fududeeyo taana waan weydiisanaya marka idinkana hawshaa aad wadaan dadka ugu kaalmaynaysaan ilaahay garabaa idinku siiyo xaqeedana aakhir iyo adduunba alla ma garanaysaa idinka sawaabiyo daawadayaal intaasi waxaanu kusoo gabagabeyneynaa qisadaasi aadka u xanuunka badan leh ee ku dhacday cabdirasaaq uu nooga warramayay noloshiisa iyo waayihiisa kala duwan ee uu soo maray